طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaa maanta halkan ka bilaabi doonaa haduu ilaahay yiraahdo casharo maadada xisaabta ah galaaska afaraad ee secondary-ga form 4. waxaad ogsoontihiin maadada xisaabta ah form 4 waxay ka kooban tahay ilaa iyo 7 cutub. cutubka ugu horeeyana waa analytic trigonometry ama trigonometry guud ahaan. haddaba waxaan muuqaalkan uga hadli doonaa cutubka koowaad casharada lagu qaato maadada xisaabta ee form 4 trigonometry ayaan uga hadli doonaa halkan. trigonometry-ga form 4 ka casharadiisa intaan gudaha u gelin ka hor waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo trigonometry-gu wuxuu ka soo bilowday galaasyada form 1 form 2 form 3 ilaa form 4 laga soo gaaray. sidaa la ajigeed waxaan muuqaalkan iyo kuwa kale xigaba uga hadli doonaa hordhac ku saabsan trigonometry-ga, kuwa oo ka caawin doona inaad fahantid casharada trigonometry-ga ee form 4 ka lagu qaadanayo. haddaba qodobada aan casharkan marka inta aad fiirsanaysid casharkan waxyaabaha aan kaaga jawaabi doono waxaa kamid ah kow waa maxay trigonometry, muxuu yahay horta trigonometry. waxaa kaloo kaaga jawaabi doonaa muxuu yahay saddexagal, maxay yihiin noocyada kala duwan ee saddexagalka. waxaan kaloo kaaga jawaabi doonaa waa maxay farqiga u dhaxeeyo noocyada kala duwan ee saddexagalka. ugu horeyn trigonometry-ga hadaan ka hormarno muxuu yahay trigonometry, qodobkaas ayaan ka jawaabi doonaa. trigonometry-gu ogaada waxaa loola jeedaa ama wuxuu yahay waa laan waaye oo xisaabta kamid horta waa branch of mathematics that studies measurement of the triangles, taasoo inta badan lagu daraaseeyo cabiraada saddexagalayaasha. saddexagalka cabiraadiisa ayaa inta badan lagu daraaseeyo trigonometry-gu, waana branch ama laan kamid ah xisaabta waaye. sida la jeed marka waxaa la yiraahdaa trigonometry-gu marka inta badan wuxuu dhiilgareynayaa ama uu quseeyaa xiriirka ka dhaxeeyo xaglaha iyo cabirada dhinacyada ee uu leeyahay saddexagal. haddaba waxaan isweydiinaynaa trigonometry ereyga trigonometry ama wordka trigonometry asalkiisa asaga xagoo noogu yimid, muxuu yahay macnihiisa. trigonometry-gu marka wuxuu asalkiisa ka yimid ayaa la yiraahdaa ereyga trigonometry Greek words, laba erey oo Greek ayuu ka yimid oo kala ah trigonon oo macnaheedu yahay triangle iyo metron oo macnaheedu yahay measure, cabir macnaheedu yahay. marka halkaas waxaan uga baxnay macluumaadii ku saabsan trigonometry-ga. maadaama aan dhahno marka trigonometry-gu wuxuu inta badan ka hadlayaa cabiraada saddexagalayaasha uu ka hadlaya, maadaama aan dhahnay waxaa hadda markaan gelaynaa qodob kale oo ah horta muxuu yahay saddexagalka. saddexagalka laga rabo in laga hadlo cabiraadiisa asaga muxuu yahay horta marka koowaad waxaa la yiraahdaa marka triangle-ku ama saddexagalku asagana waxaa lagu define gareeyaa ama waxaa lagu qeexaa inuu yahay polygon, geesoole waaye. horta geesoolahaas oo halfin leh wuxuu leeyahay triangle, saddexagal ayuu leeyahay oo subtended by saddex xaglood oo ay hoos yaala. maxay hoos yaaliin ama maxay ku hoos yaaliin three sides, saddex dhinac. waa saddex xaglood oo saddex dhinac ku hoos yaalo geesoolaha leh ayaa waxa loo yaqaanaa ama loo garan ogyahay saddexagal ama triangle. marka waxaa meesha kaaga muuqata marka triangle-ku ama saddexagalku inuu leeyahay saddex dhinac, sidoo kale inuu leeyahay saddexagal. waxaa kaloo la yiraahdaa triangle-ku waa the least side polygon, polygonka ugu dhinacyada yar waaye. haddii marka laga hadlayo dhanka polygonka kan ugu dhinacyada yar ayaa waxaa loo yaqaanaa ama loo garan ogyahay triangle loo garan ogyahay. waaye haddaba waxaa la yiraahdaa marka the addition isku geynta of all interior angles, isku geynta dhammaan xagla gudeedyada ama isku geynta dhammaan xagla gudeedyada ee uu leeyahay saddexagal uu leeyahay mar walba waxay la egtaa 280. markasta waxaa la yiraahdaa the addition of all interior angles, dhammaan wadarta xagla gudeedyada of a triangle uu leeyahay saddexagal is always equal, mar walba waxay la ekaanaysaa 180 degree ayay la ekaanaysaa. sababtu maxay tahay marka
sababtu waxaa waaye saddex xagalku waxaad ogsoon tihiin inuu yahay geesoole waxaana la yiraahdaa wadarta xagal gudeedyada geesoole kastahay waxaa lagu helaa formula ama qaacida dhehaysa sidan 180 darajo oo lagu dhuftay n minus 2 marka n oo xaraf ah waxay u taagan tahay ama yani ay u taagan tahay la yiraahdaa dhinacyada uu leeyahay geesoolaha maadaama aad ogtihiin saddex xagalku inuu leeyahay saddex dhinac ama saddex gees haddii booska inaan saddex ku bedelano saddex haddii laga jaro labo waxaa soo baxaya hal markii lagu dhufto 180 waxaa soo laabanaya 180 taasoo macnaheedu tahay wadarta xagal gudeedyada triangle-ku wuxuu leeyahay 180 saddex xagalka nuucyadiisa ka hadlayna marka aan nuucyada saddex xagalka rabno inaan sheegno waxaan ku saleynaynaa laba dhan marka koobaad haddaan ku saleyno dhanka dhinacyada haddaan ku saleyno waxaa la leeyahay saddex xagalku waxay u qaybsamayaan ilaa ay saddex koox ama saddex nooc ayuu qaybsamayaan nooca koowaad waxaa la yiraahdaa equilateral triangle nooca kale waxaa la yiraahdaa isosceles triangle halka nooca kale la yiraahdaa scalene triangle equilateral triangle waa saddex xagalka dhinacyadiisu isla yihiin isosceleskuna waa midka laba dhinac isku mid leh scalene-kuna waa midka dhammaan dhinacyadiisu dhan iyo kala gedisan koowaad equilateral triangle muxuu yahay asaga marka equilateral triangle-ku waxaa loola jeedaa waa haddii triangle-ku uu leeyahay equal lengths dhinacyo dheeraradooda isla eg yahay hadduu leeyahay oo dhammaantooda kadib waxaan leenahay saddex xagalkaas waxaa lagu magacaabaa equilateral triangle sida hoos kaaga muuqata marka sawirka hoose wuxuu tilmaamayaa triangle oo weliba ah equilateral triangle waxaa la yiraahdaa marka every equilateral triangle saddex xal walba oo dhammaan dhinacyadiisu isla eg yihiin waxaa la yiraahdaa sidoo kale wuxuu noqonayaa equiangular triangle oo xaglihiisuna way isla ekaanayaan ayaa la yiraahdaa sawirka sida kaaga muuqata marka dhammaan xagluhu way isla wada eg yihiin oo mid walbaahi waa 60 darajo dhinacyaduna way isla eg yihiin dabcan dhinacyadu number kuma qorno sidee lagu garanayaa inay isla eg yihiin ogaada geometry marka la joogo waxaa la isticmaalaa sumadooyin alifis ayaa la isticmaalaa haddii dhinacyada alif isku mid ah la saaro kadib waxay tilmaamaysaa in dhammaan dhinacyadaas isla eg yihiin hadda marka sawirka meesha nooga muuqdo hal alif ayaa mid walba la saaray taasoo tilmaamaysa in dhammaan dhinacyadu ay isla eg yihiin haddaba su'aasha aan rabo inaan weydiiyo waxaa waaye ardayda daawanaysa aan isleeyahay qaybta hore way soo daawadeen maxay tahay sababta dhammaan triangle-kan xaglihiisu inay isla eg yihiin 60 looga dhigay maadaama xaglihiisu ay isla eg yihiin nambaro kale maxaa loo dooran waayo oo 60 oo keliya loo doortay su'aasha waxaan weydiinayaa ardayda muuqaalkan fiirsanaysa la socoto waxaan rajeynayaa in jawaabta qaybta commentiga ay noogu soo qoraan waxaan gudbayaa qodobka labaad ee isagana isosceles triangle waxaa loola jeedaa isagana isosceles triangle-ku waa saddex xagal laba xagal dhinac oo isla eg leh waxaa leeyahay isagana goormo isosceles triangle-ku noqdaa wuxuu noqdaa la yiraahdaa if haddii triangle saddex xagalku has a dually two equal sides laba dhinac oo isla eg duu leeyahay oo all of its sides saddexdiisa dhinac laba dhinac oo kamid ah hadday isla ekaato kadib waxaa leeyahay ama waxaa lagu magacaabayaa triangle-ku inuu yahay isosceles triangle ayaa lagu magacaabayaa sida muuqata sawirka hoose triangle-kan laba dhinac isla eg ayuu leeyahay waa laba dhinac isla eg waxaa lagu saaray hal alif oo isku mid ah ayaa la saaray dhinaca kalena wuu ka gedisan yahay ama wuu ka duwan yahay sidoo kale waxaa rabaa inaan ku xusuusiyo haddiiba triangle-ku uu laba dhinac isla eg uu yeesho kadib laba xagal xaglihiisa ka midana way isla ekaanayaan haddaba su-aasha taala marka waxay tahay isosceles triangle-kan yaa waa xaglaha isla eg xaglaha isla eg waxay noqonayaan marka laga reebo labada dhinac isla eg xagasha dhexda ugu jirto marka laga reebo labada xaglood oo kale ayaa waxay noqonayaan kuwa isla eg marka qodobkaas isagana hoosta ka xariiqo scalene triangle asagana waxaa la yiraahdaa waa saddex xagal dhammaan xaglihiisa oo dhan ay kala gedisan yihiin asna waxaa lagu qeexay inuu yahay haddii triangle-ku uu yeesho saddex dhinac oo cabiradoodu ay kala duwan yihiin hadduu yeesho kadib waxaa leeyahay triangle-kaas ama waxaan ku magacaabaynaa triangle-kaas scalene triangle ayaa lagu magacaabaya haddaan gudub marka qodobka xigo on the basis of the angle marka xagasha laga fiiriyo saddex xaglayaashu maxay u qaybsamayaan imise nooc ayay kala naqanayaan saddex xaglayaashu marka laga fiiriyo ee dhanka xagasha marka laga fiiriyo haddaba waxaa la yidhahdaa dhanka xagasha marka laga fiiriyo saddex xaglayaashu waxay u qaybsamaan ilaa saddex oo kala ah acute triangle saddex xagal fiiqan right triangle saddex xagal quman iyo obtuse triangle oo isna loola jeedo saddex xagal furan ama saddex xagal daacsan loola jeedo haddaba haddaan ku horumarkan koowaad muxuu yahay acute triangle acute triangle-ku wuxuu leeyahay la yiraahdaa waxaa lagu gartaa haas wuxuu leeyahay all its angle
less than 90 degree dhamaan xaglihiisa dhan waxay ka yihiin 90 xaglihiisa dhan waxay ka yihiin 90 iyo ka yihiin qodobkaas ayaa la sheegaa inta badan acute triangle that means hadii dhamaan xaglaha triangle-ku ay ka wada yaraadaan kulligood 90 kadib waxaan dhahaynaa triangle-kaas ama saddexgalkaasi waa acute triangle ama saddexgal fiiqan kan xiga asna waxaa la right triangle marka qaarna right angle triangle waa la yiraahdaa hadaba right triangle waxaa loola jeedaa saddexgal quman waa maxay saddexgal quman marka saddexgal quman asna waxaa loola jeedaa marka saddexgal quman uu yahay saddexgalka one of its angle mid kamid ah xaglihiisa ayaa is equal to 90 degree hal xagal xaglihiisa kamid ah ayaa waxay leeyahay 90 dhamaan xaglaha dhan maahan hal xagal oo xaglaha kamid ah saddexda xaglood ayaa waxay leeyahay 90 hadii marka hal xagal oo xaglaha triangle kamid ah ay leeyahay 90 kadib waxaa la oranayaa triangle-kaasi waa saddexgal quman ayuu noqonayaa waxaa ku xiga asagana mid kale la yiraahdo obtuse triangle sawirkan waa arkaysiin qaybta hoose sawirka fiiriya qayb sawirka daad fiirisaan dhamaan xaglaha oo idil labada kale 90 way ka yaraanayaan laakiin hal xagal oo 90 leeg ayuu leeyahay right triangle obtuse triangle-ka asagana waxaa la yiraahdaa obtuse triangle-ku waa saddexgal waaye isagana saddexgal furan ayaa la yiraahdaa saddexgal ku furan waxaa isagana uu noqonayaa waa saddexgalka ayaa la yiraahdaa leh hal xagal xagashaas oo greater than 90 degree hal xagal oo 90 darajo ka weyn ayuu leeyahay hadii saddexgalku hal xagal oo xagliyaashiis kamid ah 90 ka weynaato kadib waxaa leeyahay saddexgalkaasi waa obtuse triangle sawirka fiiri image ka haysatay triangle-ka meesha yaalo hal xagal oo xagliyaashiis kamid ah greater than calaamada meesha taalo waa greater than 90 how ma leen 90 uu leeyahay calaamadu waa greater than 90 hal xagal oo 90 kamid ah ka weyn uu leeyahay maybe inay 100 tahay maybe inay 95 tahay maybe inay 120 tahay xagal kasta uu ka weyn 90 degree haduu hal xagal oo xagliyaashiis kamid ah triangle-ka hadii 90 ka weynaato kadib waxaa leeyahay triangle-kaasi maxaa loo magacaabaa triangle-kaasi inuu yahay obtuse triangle يا طيبة يا طيبة